kulan wacan daawadayaalkan warbaahinta Hiiraan online ku soo dhawaad wararkii u dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona horjoogayaal ka tirsan al-shabaab iyo ilaaladoodii ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe. warar dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysanaa oo ciidanka macuusliyada gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka fuliyeen deegaanka Gulaane ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. howlgalkan oo dhacay gelinkii dambe ee shalay ayaa lagu dilay laba kamid ah horjoogayaasha al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xubno kamid ahaa ilaaladoodii. horjoogayaashan ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Cali Abuukar Maxamed Saaqle oo loo yaqiinay Cali Xabad iyo sidoo kale Maxamed Cadow Ciise, waxaana goobta lagu dilay laba kamid ah ilaaladoodii. taliyaha macuusleyda aaga Gulaane Axmed Dhagey Cuurshow oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa u sheegay in howlgalkan uu ahaa mid u dhacay sidii uu qorsheysnaa. horjoogayaashan waxay ahaayeen xubno door muuqda ku lahaa hagista weerarada ay ka geystaan al-shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe. dhagartooda maanta ayaan soo afjarnay oo aan ku dilnay howlgal qorsheysan ayuu yiri taliyaha ciidanka macuusleyda gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan aaga Gulaane Axmed Dhagey Cuurshow. taliye Axmed Dhagey waxa uu sidoo kale xusay in howlgalkan noocan oo kala ah ay ku beegsadaan horjoogayaasha kooxda al-shabaab ee ku sugan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo inay sii wadi doonaan inta ay ka saarayaan kooxda guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaq culus isla mar ahaantaana ciidanka deegaankii kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaana iska kaashanay howlgalladaasi waxa ayna ku beegsanayaan goobaha markaasi ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab. golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo isku xirka gaadiidka iyo dekedaha. wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya si rasmi ah u shaacisay golaha wasiirada Soomaaliya ay si midaysan u ansixiyeen heshiis isafgarad ah oo u dhaxeeya wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Turkiga iyo wasaaradda u xilsaaran gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalka xeebaha la leh Afrika. heshiiskan isafgaradka ayaa mid xoojinaya isku xirka gaadiidka, dardargelinta isku socodka ganacsiga iyo ballaarinta iskaashiga horumarineed ee u dhaxeeya dowladda Turkiga iyo dalalka ee saxiixay heshiiskan. waa tallaabo taariikhi oo astaan u ah dadaalada wadajirka ah ee lagu gaari karo horumarka waara, kobaca dhaqaale iyo xiriirka xooggan ee dhanka kaabayaasha ah. wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxa ay u mahadcelinaysaa golaha wasiirada federaalka taageeradooda buuxda oo ay u muujiyeen hindisaha muhiimka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa sidoo kale lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya in iskaashigan muuqda uu door muhiim ah ka ciyaari doono gaarista yoolka ay higsanayso dowladda Soomaaliya. wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay sidoo kale sheegtay in iskaashiga noocan oo kala ah uu yahay mid horumar ballaaran u horseedaya dekedaha Soomaaliya ee furaha u ah kobaca dhaqaalaha dalka. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in shirka golaha wasiirada ay heshiiskan lagu ansixiyay sidoo kale goluhu uu ku meelmariyay heshiis ay wada gaareen dhawaan dowladda Soomaaliya iyo Masar oo qayb ka ah kaas oo la xiriira iskaashiga arrimaha cadaaladda iyo siyaasadda qaran ee socdaalka shaqada. dowladda Uganda ayaa shir gudoomisay kala fadhiga 1287 ee golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika PSC loo soo gaabiyay kaas oo si gaar ah loogu falanqeynayay xaaladda amniga Soomaaliya iyo mustaqbalka howlgalka taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee USOM. kulanka oo ahaa mid heer sare ah oo dhanka farsamada iyo siyaasadda ah ayaa si muuqaal online ah loo qabtay waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka kala socday Soomaaliya, midowga Afrika, qaramada midoobay goboleedka IGAD, midowga Yurub iyo dalal kale oo ka tirsan midowga Afrika. shirkan waxaa furay wasiirka arrimaha dibadda Uganda Abubakar Jejo Oganda oo muujiyay tixgelin qoto dheer ah oo u hayo askarta Uganda ee naftooda ku waayay shil diyaaradeed oo military oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho 2 Luulyo, waxaana uu tilmaamay geesiyaal naftooda u huraayay nabadda iyo midnimada Afrika isagoona tacsi tiiraanyada u diray qoysaskooda. wasiirka ayaa sidoo kale cadeeyay in Uganda ay ka go'an tahay taageerada nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya guud ahaan gobolka Geeska Afrika. ugu dambeyntii dowladda Ruushka ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay aqoonsada maamulka Taliban ee Afghanistan tan iyo markii Taliban ay la wareegtay xukunka dalka sanadkii 2021.
tallaabada aqoonsiga Ruushka uu muujiyay Taliban ayaa ka mid ah kadib markii Ruushka uu aqbalay safiirka Sacuudi xukuumadda Afghanistan oo dalkaasi u fadhin doona. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Ruushka ayaa warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirka cusub ee xukuumadda Afghanistan Gul Hassan. war qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in tallaabadan aqoonsiga xukuumadda Afghanistan uu yahay mid dhiirigelin weyn doonta Afghanistan. wasiirka arrimaha dibadda dalka Afghanistan Amir Khan Muttaqi ayaa dhankiisa go'aankan ku tilmaamay mid wanaagsan oo muhiim ah isla markaana ay go'aan geesinimo leh oo tusaale u noqon kara dalalka kale ee caalamka. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa wararkii waad kala socoteen warbaahinta Hiiraan Online. nabadiyo warsan.